kadib doorashadii ka dhacday maamul goboleedka puntland ee madaxweyne loogu doortay siciid cabdullaahi deni waxaa magaalooyinka waaweyn ee boosaaso qardhi iyo garow iyo gaalkacyo ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo guusha uu gaaray siciid cabdullaahi deni banaanbaxayaasha oo ka caraysnaa guuldaradii la kulantay asad cismaan diyaano ayaa wadooyinka waaweyn ee magaalooyinkaas waxay ku gooyeen dhagaxaan iyagoo taayiro gubayay wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in laba qof ku dhaawacantay rasaas ay rideen ciidamo ka caraysan guuldaradii la kulantay asad cismaan diyaano dhinaca kale magaalada garowe ee markii lagu dhawaaqay madaxweynenimada siciid cabdullaahi deni ciidamadii baarlamaanka ilaalinayay qaybo ka mid ah ayaa rasaas riday kuwaasoo ay ku dhaawacmeen ilaa 3 qof lama oga xaalkan xiran ee magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka puntland waxa uu ku dambeyn doono hase ahaatee puntland waxa ay yeelatay madaxweyne cusub